horta subax wanaagsan anaga hadda waagan oo bariyay anigana hadda soo kacay qabar hortay oo soo kacay wixii dhar ahaayaan ku qasaardo inta jab ku siiyo nadiifiyo igaar dhaafay iishu kumaanadii aan ku wixii dhan jaakadihii nin laandheere ee waa kaasaan ku inta qabsayo oo dhaqiyay anigana waa kana hadda indhaweyna soo kacay meeshas gadaalan ka qoslo waaya inaan video duubo haya ogahay asaga waa ogyahay inaan video duubayo waa nin oo maxaa la yiraahdaa reer magaal ah niman xajiraayo duubin hayeelana wax sameeyaha ku dhahay والله حريف وشغديس ما أن كاميرا جيس لك صوت إنت سكسامية سوق بتورط برتاسان دقة ما شاء الله تعالى حيهد ما شاء الله تبارك الله نيو ورد فيديو وعدك مركز سو ساروية مركاني قوار دركو الحمد لله جايس وصل دميني إن دركي مركوانا صولا لا وسو حري dhaxana dareemaan ku jaakad iga dheer soo gashtay ma sha Allah ninkaanayta bardad ana jarjaraayo reer because aniga bardad aad baa laga cabsada waxaan qabsanaa hilibka dhan ka dajinaano ninkeygana baqiil oo ogtiin halaas oo ka dajiyaa yariiska warbiya abaarayaan way qabeen mididas weyntii ku soo feehe marka go'aan oo gaarin oo bardad iyo dhiibin qaybta basasha leeyahay halay asna basarada u dhiiba gaduudahan ku eray bombal camal marka guys waa kana aniga basashiyan ku faagtay asagana bardadii ku soo faagtay maanta waxa rabaa in insha Allah taala aan siiyo canjeero iyo maxaa la dhahay dalac bilaash canjeero iyo dalac bilaash anaga dhan waa cunaa waa naqaana but I want like ina culture-kayga asaga baro so marka guys saas waaye asaga aniga culture-kiisa ma bari karo like aniga culture-kayga waa bro because I'm the one and only queen waa ina aniga rules-kayga la raacaa dad badan ay dhahay jaaninka oo bilaawtay yani gabadha inuu 10 siiyo and wait marka ay dhahay ninkii waa vegetarian like dadka khudaarta cuno waa idin foodeynaa wuxuu like ma ka saay dadka khudaarta cuno yani waxa dhaysiina fiirna waa ka saa vegetarian people waa dadka aaminsan yani in xayawaanada masaakiin ay yihiin aan la cunin waxyaabaas aaminsan soo marka asaga wuxuu aaminsan yahay in xayawaanka miskiin yahay oo hadli karin oo xaq laga galo ma fahanteen والله بلا واشق أسوء طال يلي بوربا إنه يجوا حارانة كاتا هبين وبكور لفا كل جناه بط like هذا حاربا عنتوين أنا قاعد special كأنه برتس عنجيرة ذا إن بروك كلا محل ذا موفذا وحيابه أنا قاعد أخن كلنا دقير إنا برا ربا وحيابه أنا ربا إنا برو فين أول حوي كان علوش إذا ما قاعد كرتاه مركا إن شاء الله بردونا هذا نحوا قيب تجي كذا كجرنا أنا وحوا كوكردا نذيفيويا iyo ovenka like asagana waxa irday abu macaan darbiyada meer hala la shaqeysto gurigaanayto because shaqaale ma joogto asaga igu yiri shaqaale ma keenay waa in shaqada la isla qabtaa because wuxuu yiribo sheeko wuxuu ii keeno marka ay shaqaale keensan waa qof bil aadan oo adoonsan waxaas abuse waa qofkan lacagta u baahan yahay haduu lacagta uu heesan lahaa ma ku shaqeyn lahayn naxariisan jirin oo filanka meeshka bilaabay waxa arnay weeshka dhaqayna waa dharkan adag dhaqaysid cuntadan adag karniis everything anigu halay u taagan yahay ma fahamtay inkastoo ninkay uu necab yahay la dhaqow baarayaan ma dhaafeysay waa kana weelish waa soo dhaqooya asna waa tirtiroohaya adduunka weel qoyan meeshas lagu rido u necab yahay ma fahamteen soo marka ani weelasha u dhaqay asagana meesha ku ridaya like markaas waa la caawinayo moogta hal qof yani madreemay inuu yani asaga shaqeynayo marka waa kaasa guys gabdhaha Soomaalida oo yani u maleeyana yani gabdhaha waxa jir la qabo isdhaa rayaan istareexay ku jirta aba walaa waxa sayta iska dhaadhicinin ninka haduu ku qabo ama nolosha haduu ku jirto ku faraxsanaaw calafka haduu dhamaadana faraxyaasha ka taga marka idin waxas kaftan waayo wiilashin wiilal fiican waayo soo marka idinka ka dhigatiin waa ba aniga joyskeyga ma daas waayo marka guys gabdha badan waxa arkay luuqanta iga soo wacay talana si oo like ana waxa kaftan u dhahay aaminay daas waayo hadda hadalkaas soo qaatay wana dhahay yani faraxyaasha Soomaalida rayaan walaa ku rafaadnay ma fahanteen marka waa kaasa guys horta kaalinka waa kana ku ruuxan ircanjeer dub ninka aniga waxaan rabaa daraaga ceelo meel dhahay geeyo ama ceeldar ama cadal ma fahanteen waa kana canjeera aniga dub isku sawirahay qaybta ana duwaya guys beem idin sheega aniga asaga wax saasa ma dhaami laakiin still waa kana canjeerada amal dubi kara laandheera banaandiga iska ahay marka waa kaasa guys sidoo kale to waxa waa hadirtaan u dhadhaminaya inaba caadi ma ahan waxa waa yiri cunto fiican waay saan waay ka dhaco waay jikada faa'iido ay tahay duba era professional ka dhigan soo saarto laakiin ma darna isleeyahay waa iska normal qof maalinka ugu horeyso mugta ninka every morning ana canjeero ima soo dubo maanta la barooya because waxaa markaa hadda qaaliga walaa waa kana ku ire liinta aan gacanta ku tuuxo malaya culture gooni ah waa la igu dabadayso fayar ya majaj macala ku noqoto xumaan badana
waaba kana aniga saa cunayo loo cunayo gacanta kuma cuni yaqaan wax guys wuxuu ani ii fiirinayo maalin walba wuxuu iga daba wataa qaado iyo fargeeto iga daba wata anigana kaas kuma cuna yaqaan mugta qaado iyo fargeeto wax kuma cuna yaqaan asaan waxaas kasoo jira stop I want to teach you my culture so follow me camal no nifahanteen marka guys mar walba saasa aan ku boocsadaa si oo yacni aaba aniga qaadada faarkeeda laygu soo qabanin casuumaad iyo doo ii kaxeeyana baama idin sheegaa musqusha layn geli karaa xaaraam caleyga igtahay inaan fargeeto inta qabsado baasto ku toosiyo mafahanteen maybe bariis waa ku cuni karaa chicken waa goosan karaa but like baasto aada igu adag tahay guys marka ninkaaneyta waxaan taaganaya gacanta sida wax loogu cuno ku baraabo because dadkayga la kulmay meeting la yeelanay so they don't want like qof oo gacantiisa isticmaalayn inaan dhahay ilaahay gacanta wuxuu kuu siiyay inaa wax ku cuntid waanaaba meesha uga kacabo baa idin ma sheegay ninka maasha Allah horta canjeerada aad uga helo maalinta dhan idin amaanay wuxuu dhahay Soomaalida cunto fiican ay cunaan Soomaalida wax oo fiican ay cunaan wallahi macaan waay oo ii galo ma fahanteen marka guys waa ka saa canjeerada dalax blaashkeena qabsanay anaga hadda hilib ma weyn dad ama leen doon inay hilib weyne waa aniga odagayga ma cuno hilib sababta uu cunina waxay tahay dadka qaar ma fahansano like waa qof oo vegetarian like qudaar cuno oo aaminsan in xayawaanka qalad laga galooyo bla bla waxyaabahaas oo aaminsan yahay waxyaabahaasna wuxuu ku aaminay markuu iskuulka dhiganayo uu under age ka ahaa yacni da'diisu ay yareed walaa faahfaahin dheer idinkama sii karo bad waxaa idin sheegaya inuu hilib cunin malayna uu cunin doorana uu cunin uu qudaar le cunyo marka kaas aniga dhaayad qoto qootoba iyo bilaawdaba maasha Allah